muddo dheerna golaha dhexdiisa yaalay oo dee wax badan oo imika socda inuu xalliyo looga baahan yahay isla markaana dee waxa weeye dakhli iyo dhaqaalaba dalka soo gelinaya sidaa darteed ahamiyadda uu leeyahay waxaa loo baahan yahay in xildhibaanadu si qoto dheer oo nuxur leh ay uga doodaan ugana hadlaan doodayda aniga waxay ku saabsan tahay waxyaabo kooban oo asaasi ah waxaanan ka duulayaa uun xeerka ay xukuumaddu soo jeedisay wixii aan ku arkay intaan akhriyey runtii marka ugu horeysa waxaan ku bilaabayaaba buuggu wuxuu ku bilaabmay tusmada xeerka runtii way qodobaysan tahay qodob walba meeshuu yaallo iyo cutub walba way sheegaysaa waxaan ka soo qaadayaa waxoogaa khaladaada ama madbaci ha noqoto ama si kaleba had loo dhige markaad fiiriso qodobka 8aad waxaa qoran awoodda iyo waajibaadka wasiirka xeerka dhexdiisana waxaa qoran wasaaradda anigu waxaan leeyahay sidii ha lagu celiyo wasaaraddii weeye awoodo fara badan oo 25 awoodooda ee wasaaradda iskale wasiirku wuxuu leeyahay waxaa lagu xusay meelo kale oo kala duwan oo la sheegay oo lagu balballaadhiyey waajibaadka isaga uu gaar u leeyahay laakiin wasaaraddu qodobka 8aad awoodda wasaaradda iskale oo waxyaabo fara badan oo wasaaraddu ay shaqo ku leedahay oo wasiirka keligii una ahayn ayaa ku jira marka taana la tixgeliyo oo ka laga saaro wasiirka oo wasaaradda la yidhaahdo runtii tusmaha waxaa ku jira qodobka 99aad u yeedhista maragyaasha oo maragyada iyo qodobka 100 oo ah ciqaabta cidda diidda ama dhayarsata inay xaadirto maragga waxaan u malaynayaa laba qodob oo meesha in laga saaro ay tahay waayo sababtoo wasaaraddu maxkamad maaha wixii maraga iyo wixii yeedhis maragayaasha iyo yeedhistooda iyo xukunka la qaadanayo dee waxaa iskale hay-ad maxkamadeed ama maxkamadaha garsoorka taasina waxa weeye labadaa qodob halkan baan anigu leeyahay ha laga saaraba xeerka gebigiisaba ajuurooyinka sanadeed waa ku qeexan tahay runtii wax badan bay sheegaysaa anigu waxaan isleeyahay xeerka sida loogu soo daadejiyey waa wax meesha ku jira in la tixgeliyo waa fiican tahay meelo qaarkood un taabanayana waa iska jiraan waxaan ku jiraa weli erebixintii macnooyinkeeda waxaa ku jirta halkan safxadda bejka 3aad ruqsadda macdan qodista ma macnaysna halkan kuma qorno horteeda waxba in lagu qoro weeye ama wasaaraddii soo gudbisay ha lagala kaashado ama guddiguba hadduu ku arkayo meel uu macnaha ku qorayo in la helo weeye waxaa ugu muhiimsan imika waxaanu gelaynaa mabaadi'da guud ee xeerka qodobka 5aad lahaanshaha iyo gacan ku haynta macdanta halkaa runtii dib u habeen bay u baahan yahay qodobkaasi siduu u dhigan yahay waayo siduu u qoran yahay waxa weeye macdan kasta oo iyada oo dabiici ah laga helo dhulka webiyada dooxyada iyo ilaha biyaha ee dalka Somaliland aag dhaqaale ee gaar ah iyo dhulka badda dhuleedkeedu waa hanti ay leedahay jamhuuriyadda Somaliland halkaa waxaan odhanayaa dib u habeena lagu sameeyo sida uu dastuurku qorayo iyo xeerka 17 xeerka dhulka waxa weeye hanti uu ilaahay subxaanahu wa tacaala u hibeeyey shacabka Somaliland taas weeye waxaa la qoray waxayna
gaar u tahay dowladda Somaliland anigu halkaa waxa weeye waxa lagu darayaa sidoo xeerka dastuurku uu sheegayay iyo xeerka dhulku waxa uga mas'uul ah dowladda Somaliland xeerka waa dastuuri waana qodobka xeerka 17aad bay ku jirtaa in dhulkaasi ilaahay ka soo ko shacbiga Somaliland leeyahay isla markaasna xukuumaduna uga mas'uul tahay qodobka lixaad yaanu gudbayaa mamnuucidda sahminta iyo baadhista macdanta ogolaansho la'aan halkaa inta badan xeerkan waxa ku badan qof waxa weeye waa shakhsi kaliya taasina dee qof waxa weeye ku yimaado oo ruqsad iyo ka dalbada ama wasaaradda ka dalbada in la siiyo iyo in la siin waxa weeye waxay ku xidhan tahay markaa ama wasaaradda ama dee cidda markaa dabada ka riixaysa sidaa darteed qof halkan kuma habboona waxa weeye waa inay uu ahaadaa qofkaasi qof qaanuuniya macnaheedu uu yahay waa inuu shirkad uu leeyahay oo uu isla markaana soo maray muxuu ahaa ruqsad ka soo qaatay wasaaradda ganacsiga oo muxuu ahaa laysankiisa ama sharcigiisuna mid shaqeeya oo uu cashuurta ka bixiya ay noqdo waayo xeerka shirkadaha waxaan uu ku xusnay inuu qof yeelan karo iyo group ama koox ay yeelan karto shirkad laakiin qof keligii markuu yahay macnaha waxa weeye waxa soo geli karta qof jeclaysi waxa soo geli karta musuq waxa soo geli karta wax badan oo meesha loo baahnayn dawlad ahaan inaanu u dhaqano marka qof halkaa inaa laga saaro oo la yidhaa shirkad qof iyo shirkadba toona buu leeyahay marka waxaa in la yidhaa shirkad kasta oo dhulka Somaliland xeerkani lagu dabaqayo kama samayn karto sahan macdaneed iyo hawl macdan baadhiseed toona ruqsad ama ogolaansho la'aan waliba loo bixiyay si xeerka waafaqsan marka waxa weeye taa qofka aan baa ka soo horjeeda mar walba xeerkani meesha qof uu leeyahay waa inay shirkad timaadaa shirkadaasi ama qof ha yeesho ama kooxi ha yeelato marka halkanna waxa weeye qodobka saddexaad qodobka lixaad faqradiisa saddexaad isagana waxa weeye wax yar baan ku dibu habeen baan ku sameeyay qodobka hantida khayraadka macdaneed waxa ay ka wareegaysaa dawladda waxayna u wareegaysaa dawladdana kama wareegayso dee wax ka wareega ma jiraan maadaama mas-uul ay ka tahay dhulka ay shacabka uga mas-uul tahay waxa weeye waxa lagu qorayaa ama soo jeedinaya in lagu qoro waxaanu intifaaceedu u wareegayaa intifaaca dhulka lama laha qof ma yeelanayo dhulkan waxa weeye ilaahay ka soo koob shacabka oo dhan baa wada leh waxay dawladdu bixito ayada ka mas'uula sida xeerka 17 uu qorayo ayada ama haday ka qaadatana magdhow bay bixinaysaa haddii isagu isticmaalana waqtiga u baahato way ka qaadi kartaa iyadoo u raacaysa xeerarka dalka oo xeer 17 ugu horeeyo marka kama wareegayo ee waxay u siinaysaa intifaac inuu ku intifaaco isticmaalkeeda weeye maaha inuu ka wareegayo xaqii isagu oo dhan uu ku wareegay halkaa waa in laga feejignaada lana muxuu ahaa qodobka 19aad sidaa way ku caddahay qodobka 19aad xeerkan lafteeda sidaas uu sheegay qodobka 7aad qodobka 7aad waxa weeye waa noocyada ruqsadda macdaneed buu cinwaanku yahay runtii dee waxa weeye xuquuqda macdaneed ee soo socda ayaa la bixiyaa si waafaqsan xeerka runtii waxa weeye 7 halkan qoran qodobka 111aadna waxa ku xusan 5 kaliya marka dee taasina waxay u baahan tahay caddeyn labada kale meeshii ay ku habbooneed in la geeyo ama la raadiyo
sidii loo heli lahaa labadaa kale. halkan waxa weeye qodobka 9aad iyadana wasiirku awoodda inuu sameeyo xeer nidaamiye yaa qoran foomamka codsiyada cusboonaysiinta wax ka bedelka wareejinta iyo waxyaabaha la mid iyo wax la mid ah si buuxda loogu dhaqan geliyo si qodobada xeerkan isaga uu awood leh. marka waxa weeye awooddaasi waa inay waafaqsanaataa xeerka laftiisa si uu fuliyo go'aamada xeerkan uu soo saari karaa laakiin ma khilaafi karo xeerarka qoran ama qodobada uu soo jeediyey xeerkan. qodobka 58 qodobka ah waxaa halkan ku qoran tii aan mar dhaweyd ka hadlayay qodobkan isaga xuquuqda macdanayd la siin maayo shakhsi baa leh shakhsi lama siinayo waa sax laakiin muxuu qoray shakhsi aan shirkad lahayn in lagu qoro shakhsi aan shirkad lahayn. marka waa shardi halkaa in lagu xidho lagu dabro inuu shirkad leeyahay laanno macdan uu baarayo qodayo oo uu wax ka soo saarayo qof keliya oo ruqsad la siiyey macno far badan buu yeelan karaa. waa inuu ruqsadii ganacsiga ee shirkad ahaan uu meesha ku jirta. halkaa waxa weeye way soo noqonaysaa oo mar walba faqradda afraad iyada lafteeda qof ama shirkad baa la qoraya qofka waa in laga taxadiraan. waxaan leeyahay waxaan soo jeedinayaa qof lama siin karo hadduuna shirkad ahayn isaga laftiisu muxuu ahaa macdanta inuu ka faa'iidaysto ama sahan ama qodid ama wax soo saar iyo ganacsi. halkaasina meeshaas baanu dhignay. waxaa jira qodobka 19aad iyadana sidaasoo kale baa soo noqonaysaa qof iyo muwaadin oo meel kale waxaanu ku arkaynaa inuu qofku hadduu maqan yahay sidoo looga ogolaadayba inuu muxuu ahaa ama shirkadu hadday maqnaato oona saldhig ayna lahayn oo halkan ayna ku lahayn xafiis sidii looga aqbali lahaa wakiil iyo shaqaale iyo liisankaa la bixinaya shirkada muxuu ahaa ganacsiga wasaaradda ganacsigu ay bixinayso way ku xadidan tahay qofka shirkad samaynaya shuruudihii laga dhigay. marka laakiin imika haddii sharcigan la eego oo la yidhaa qof ama shirkad ajnabiya ama muwaadin awood sharci leh oo fulinay kara hawsha macdaneed ee ruqsaddu waajibinayso kaasoo aan ruqsadda looga diidin si waafaqsan qodobka 11 ee xeerkan ama aan lagu helin dambi ku sheegan xeerkan. marka halkaas waxaad ka garanaysaa muwaadinkii iyo ajnabigii labaduba dee codsigii way iyagoo soo maraya wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga waa laga maarmaan in la xaqiijiyo inuuna qof keliya ahayn oo loo danaynayo ay noqoto qof ama shirkad leh ama shirkado ama shuraako jamaaciya oo wada jira. anigu waxaan leeyahay intaasoo muhiima horta xagga intaanu ka gaarnay xeerka iyo isbedelka lagu samayn karo iyo soo jeedinmahaygii intaa baan ku koobayaa. waxaan u gudbayaa runtii xildhibaankii ugu horreeyay wax badan baan ku raacsanahay oo ku saabsan soo jeedinta guddiga qodobaday soo jeediyeen wixii uu xildhibaankii hore ku raacay waan ku raacsanahay. marka laga reebo qodobka ka warramaya in macdanta la soo saaro dowladdu ay ku leedahay 10% haddayna waxba ku darsan. anigu waxaan soo jeedin lahaa inay 5% noqoto oo la yareeyo
sababtoo ah dee waxa weeye in 7 ruqsadood oo mid walba lacagaheedii uu bixinayo sanadlaha ah iyo isagoo ajuuradii bixinaya ina inta culays isaga la saaro way hadduu soo saaro 5% in laga qaado ta kale waxay dhiirigelinaysaa maalgashiga haddii imika ku bilowdid 10% baa la qaadaya haween shirkado badan baa imanaysa wixii matalan dhulka laga helayo intaasoo lacag iyo kharash markuu bixiyo haddana 10% dawladdu ay yeelanayso waxa way ka maagayaan wayna ka fogaan karaan marka 5% waa ku filan tahay wax soo saarka uu soo saaray ina laga qaato dawladda waa ku filan tahay dawladana waxa la rabaa inay ku habayso sidii nafci ay ugu noqon lahayd dadka iyo dadweynaha qodobada cusub ee soo kordhiyeen runtii wax badan oo aad bay u wanaagsan yihiin asay waxa u baahan tahay dib u habeyn iyo ina meeshii ay loogu talagalay ay galaan taasna waxay u baahan tahay sida xildhibaanka hore sheegayba in loo guddigii iyo muxuu ahaa hukuumadii haddii la helayo ay isku guraan oo wixii anfacaya iyo meelaha joogaan laga helo wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wasala allahu wasalam calaa muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasallam tasliima kaiira